kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waraadka wararka waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee daawo doontaana waxaa kamid ah qoor oo amray in la weeraro ciidamada ahlu sunna ee ku sugan Bohol rooblo oo qadka taleefanka kula hadlay Uhuru iyo wafdi ka socda oo qarsoodi ku jooga Nairobi mahad salaad oo weerar xoogan ku qaaday Sheekh Shaakir Axmed Macalin Fiqi oo fariin culus u diray qoor wararkii ugu dambeeyay dagaalka kursiga ay isku hayaan Xaaf iyo Cabdi Qeydiid oo gaaray meel xasaasi ah qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow daawadayaal daawo doontaan balse daawade waxaynu kaa codsanaynaa inaad channelkeena raadka wararka subscribe saartid muuqaalkana like saartid oo sii share gareysid gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor ayaa wuxuu amar ku bixiyay in la weeraro deegaanka Bohol oo ay ku sugan yihiin xooga ahlu sunna wal jamaa Axmed Cabdi Kaariye qoor ayaa la sheegay inuu ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku amray inay si degdeg ah weerar ugu qaadaan deegaanka Bohol oo ay fariisin ka dhigteen ciidamadii ahlu sunna ee ka baxay magaalada Gurceel qoor ayaa sheegay in aan la aqbali karin in ciidan aan ahayn kuwa maamulka Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sugnaadaan deegaanada Galmudug waxa uu sheegay in tilaabo degdeg ah laga qaadi doono xoogaga ahlu sunna ee fariisinka ka dhigtay deegaanka Bohol madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor oo wali ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu kormeer ku tagay xiriyaha ay militariga Soomaaliya uga sugan yihiin degmadaas oo maalmihii la soo dhaafay marti gelinaysay dagaal qaraar madaxweynaha oo ay weheliyeen wasiiro xildhibaano iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyay kelmado iskugu jiray dhiirigelin iyo bogaadin waxa uu ciidamada qalabka sida ku amaanay sida hagar la'aanta ay waajibaadkooda ay u guteen ciidamada ku sugan Gurceel oo u badan gorgor iyo qaybta 12aad ayaa maalmihii la soo dhaafay wajahayay dagaal culus oo khasaare badan uu ka soo gaaray waxaana badankood laga soo qaaday magaalada Muqdisho kadib markii si fudud ay magaalada Gurceel gacanta ugu gashay xooga ahlu sunna wal jamaa saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka xooga dalka General Adwaa Yuusuf Raage taliyaha qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya taliyayaasha guutooyinka qaybtaas iyo saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa ku helinayay kormeerka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor sidoo kale inta badan xubnaha golaha wasiirada Galmudug xildhibaano heer federaal ah oo mahad salaad ku jiro iyo maamulka degmada Gurceel ayaa qayb ka ahaa kormeerka ciidamada ee madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor ayaa waxa uu ciidamada ku amray inay u diyaar garoobaan weerar ka dhan ah ahlu sunna oo la qorsheynayo in maalmaha soo socdo lagu qaado deegaanka Bohol xooga ahlu sunna wal jamaa ayaa waxa ay fariisin ka sameysteen deegaanka Bohol waxaana saacadihii la soo dhaafay soo gaarayay gurmad xoogan oo isugu jira saanad ciidan iyo sidoo kale ciidamo cusub ahlu sunna wal jamaa ayaa la sheegay in halkaasi ay ka sameysteen dhufeysyo aad u xoogan deegaanka Bohol ayaa waxa uu ahaa deegaankii u horeeyay isku farasaaraan ciidamada ahlu sunna wal jamaa iyo ciidamada maamulka Galmudug oo garab ka helaya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa Bohol ku sugan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana sidoo kale halkaasi jooga saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ahlu sunna wal jamaa xogo kale aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ahlu sunna ay heshay gaadiid dagaal sidoo kale hub culus ayaa la sheegay inuu soo gaaray ciidamada ahlu sunna ee ku sugan deegaanka Bohol maalmaha soo socda ayaa la qorsheynayaa in ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar ku qaadaan deegaanka Bohol saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ahlu sunna wal jamaa ayaa waxa ay sheegeen inay u diyaar garoobeen inay iska difaacaan dagaal kasta oo lagu soo qaado sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo dhawaan la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay dib ugu laabanayaan xeriyihii ay ciidamada ahlu sunna kaga sugnaa jireen deegaanada Galmudug sanadihii ay halkaasi ka talinayeen waxa uu sheegay in cid walba oo isku dayda inay ka hor timaado inay iska difaaci doonaan Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu fariin culus u diray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu madaxweynaha maamulka Galmudug ugu baaqay inuu weerar ku qaado deegaano ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug al-shabaab Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in deegaanka wasil deegaano hoostaga ay soo gaareen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab kuwa oo doonaya inay weerar ku soo qaadaan deegaanka wasil Fiqi oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku yiri Odawaa iyo madaxweyne qoor waxa looga fadhiyaa xoogii xoolihii iyo abaabulkii ciidan ay ku bixiyeen Gurceel in ay wasil uga difaacaan argagixisada
waa haddii galmudug maslaxadeeda iyo xasiloonideeda laga shaqaynayay. sidoo kale waxa uu sheegay in marnaba aan laga aqbali doonin in uu yidhaahdo madaxweyne qoorqoor bulshada ku nool Wasil iyo agaaradeeda ha iska difaacaan al-shabaab. shacabka galmudug waxa ay sugayaan tallaabada oo arrintan ka qaadi doono qoorqoor oo laba mid uu noqon doonta in uu ka dhabeeyo isdifaaca iyo in uu gurmad ciidan u diro, ayuu yidhi Axmed Macalin Fiqi. xildhibaan Fiqi ayaa kala hore madaxweynaha galmudug ku dhaliilay in awood ciidan oo loo baahnaa inuu kula dagaalamo al-shabaab uu la aaday ururka ahlu sunna oo iyagu markii dambe iskaga baxay magaalada Gurceel. xildhibaan Mahad Salaad ayaa waxa uu weerar xoogan ku qaaday Sheekh Shaakir. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka hadlay xiisadda u dhaxaysa dowlad goboleedka galmudug iyo ururka ahlu sunna wal jameeca ayaa waxa uu beeniyey in wadahadallo ay u socdaan galmudug iyo xoogagga ahlu sunna, isagoo ka sheekeeyey qaabkii ay ciidamada ahlu sunna uga baxeen magaalada Gurceel. Mahad Salaad ayaa sheegay in Sheekh Shaakir uu ciidankiisa uga dhuuntay dagaalkii Gurceel kadib markii ay xaaladdu ku adkaatay. waxa uuna sharaxaad ka bixiyey qaabkii uu uga baxay Gurceel iyadoo ay ka dhex dagaalamayaan ciidamadiisa. Mahad Salaad ayaa sheegay in Sheekh Shaakir uu ka baxsaday magaalada Gurceel kadib markii uu xoogaystay dagaalka, waxa uuna sheegay inuu ciidamada halkaasi kaga tegay. Mahad Salaad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay la soo xiriireen culamo ku sugan magaalada Gaalkacyo isaga iyo senatarro ku sugan Muqdisho kuwa uu ka codsanayay in dagaalka laga joojiyo ahlu sunna, waa sida uu hadalka u dhigay. xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in Sheekh Shaakir uu ku sugnaa deegaanka Huurshe maalmihii dagaalka adag ay Gurceel ku wajahayeen ciidamadii uu ka soo aruuriyey deegaanada miyiga ah. sida uu sheegay waxa uu yidhi haddii uu jihaad jiro kama dhuunteen Sheekh Shaakir ciidamadii oo soo aruuriyey. Mahad Salaad ayaa maalmihii ugu dambeeyey wuxuu abaabul ciidan ka waday deegaanaha hoostaga Gurceel, waxuuna haatan ku sugan yahay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. qaar ka mid ah odayaasha beesha Saacada oo kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa ka digay in kuraasta galmudug ee ka dhiman aqalka sare loo xiro cid gaar ah. odayaasha ayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ka dalbaday in kuraasta ku dhiman maamulka galmudug ee aqalka sare laga dhigo kuwa furan si looga baaqsado dib u dhac iyo dagaal. odayaasha ayaa si gaar ah uga digay in kursiga aqalka sare ee beesha Saacad loo xiro cid gaar ah. sidoo kale waxay sheegeen in kursiga ay xaq u leeyihiin beesha reer Odow isla markaana ay sanadkan iyagu xaq u leeyihiin, sidaas darteedna aysan aqbali doonin in cid gaar ah loo xiro. ugu dambeyntii waxay odayaasha dhaqanka dalbadeen in si furan u tartamaan musharaxiinta kursigaas si looga baaqsado xaalad dagaal. kursigan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo horey digniin culus ugu jeediyey maamulka galmudug, iyo senatar Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid oo kursigan ku fadhiyey 4 sano ee la soo dhaafay. wafdi qarsoodi ah oo ka socda xafiiska Rooble ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. sida ila muhiim ah ay xaqiijiyeen waxaa dhowrkii maalin ee u dambeysay ku sugnaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi wafdi qarsoodi ah oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaare Rooble. wafdigan ayaa isugu jira ganacsato, siyaasiyiin ka soo jeeda qoyska uu ka dhashay ra'iisul wasaare Rooble iyo xubno ka tirsan xafiiskiisa. safarkan oo laga qariyay warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ujeedadiisa lagu sheegay inuu yahay mid u gaara ra'iisul wasaare Rooble iyo saaxiibadiisa, taas oo macnaheedu tahay in Rooble oo wada hadal gaar ah isagu la yeelanayo hoggaanka sare ee dalka Kenya. xubno ka tirsan xafiiska Rooble ayaa waxay xaqiijiyeen in ra'iisul wasaare Rooble iyo Uhuru Kenyatta ay muddo daqiiqadaha ku hadlayeen qadka taleefanka. Rooble iyo Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay inay ka wada hadleen sidii loo soo fasaxi lahaa qaadka, isla markaana ganacsato ku beela ra'iisul wasaare Rooble loogu xiri lahaa. waxayna xogaha xaqiijinayaan in maalmaha soo socda la qorsheynayo in jaadka Kenya la fasaxo. guud ahaan warka aad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga inta.